مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. بشهر مزاياه أكمل، تفوق الشهور سواه، ففيه الكتاب. نبي موسى عليه الصلاة والسلام wuxuu ka mid yahay shanta nabi Ilaahay subhanahu wa ta'ala doortay oo lagu magacaabo ulul azm. shanta nabi oo kala ah nabi Nuh عليه الصلاة والسلام, nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi Isa, iyo nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nabi Musa wuxuu ka mid ahaa sidoo kale kaliimullah, mid Ilaahay subhanahu wa ta'ala toos ayuu ula hadli jiray Ilaahay subhanahu wa ta'ala. sidoo kale nabi Muuse wuxuu ka mid ahaa waxay tahay nabi dulqaad badan, sabar badan ayuu ahaa. nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam sidoo kale wuxuu ahaa waxay tahay nabi qof walba ah ka jeclay uu jeclaan jirayba. sidoo kale nabi Muuse Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u soo dhiibay waxay tahay uu ku soo dejiyay waxay tahay Tawraah, kitaabka lagu magacaabo Tawraah ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku soo dejiyay. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه. imise jeer ayaa nabi muuse calayhi salaatu wasalaam lagu sheegay magaciisa qur-aanka? nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid yahay nabiyaasha in badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala qisadiisa qur-aanka lagu sheegay. 136 jeer ayaa magaciisa lagu sheegay qur-aanka. nabiga ugu badan miyaa magaciisa qur-aan lagu sheegay? nabiga ugu badan sababtoo ah yani insha Allah ta'ala waa arki doonaa marka aan xalqadan anaga ku sii dhex jirna meelo badan iyo casharo badan iyo dhinacyo badan ayaa jirta. يعني qof walba anaga naga mid ah haduu dul istaago uu ka baranayo noloshiisa yani 10 aad iyo aad u badan. cajiib sax. marka 136 jeer ayaa quraanka lagu sheegay. suuratu qasas ayaana yani si fiican u qeexday u sharaxday qisadiisa asiga iyo fircawn. su'aasha waxay tahay fircawn waa kuma? fircawn ma qof ayaa la dhahaa mise sidee waa fircawn magaca? wallahi fircawn waxa la dhihi jiray qof kasto xukumi jiray magaalada Masar ama boqor uu ahaan jiray. magaalada Masar kaliya Masar meel badan bay hoos imaan jirtay, dhulka oo weyn oo dhan bal Afrika qayb badan bay hoos imaan jirtay. ayaa waxa la dhihi jiray waxay tahay ardu Masar la dhihi jiray. taas awgeeda fircawn waxa waaye boqor kasto oo xukuma Masar la dhihi jiray. waxayna kamid ahaayeen reerka la dhihi jiray Qibtiyiinta wixii la mid ah ay ahaan jireen. يعني فرعون dadkaas boqortooyada ay wax la mid يعني asaad waxa laga yaabaa magac kale inuu leeyahay magac kale leeyahay Ramses الثاني magac badan bay sheegaan laakiin fircawn waa naanaystiis aan boqorkaas laqabkaas loo magacaabo jiray sida sheekh loo dhaho doctor loo dhaho qofka caafimaadka ah ama qofka engineer loo dhaho wax sameeya ama qofka maxalli jiray wadamada Yurub wala boqortooy princess loo dhaho kale ama Saudi oo kale sheekha ay sameeyaan sax gabadha maxalli jiray boqortooyada kamid ah amiirada wixii la mid ah sheekha ay dhahaan ama sheekh mugtaad inga Soomaaliya sheekh ay wanaagsan maxalli jiray culimada inga carabta qaarkood saas kale waadada iyo xumada saas kale xukunka dadka hayana carabta wadamada qaarkood waxa loo adeegsadaa sheekha si Soomaali ugaas loo adeegsado qofka ugaaska ama qabiilka qofka maxalli jiray u madaxweyne mid fircawn saas ka xalo isticmaal jiray waxay tahay qof kasto xukumi jiray boqortooyadaas. boqortooy aad u weyn bay ahayn oo aad u baaxad weyn وحكم جت إلا وقت موسى عليه وقت النبي يوسف واحد قصديس واجي نبي يوسف وإيمانه ماشي مصر فرعون حكم الجري. فرعون كان نبي موسى معهن لكن فرعون كان حكم الجري ورياني يحلم العلماء يقتل العمان أي حكم الجري. نبي يوسف نبي موسى حاول دحيس وحيت أفر بقول سنة ودحيس أفر بقول سنة ودحيس عجيب فبقول سنة ودحيسي. نبي يوسف عليه السلام ربنا إسرائيل أيها حكم سورة يعقوب أيها كم يتعمقوا مصر إمادي أبيس يعقوب وإمادي وعليس إمادين أي مش كتر من هذا أي دقين أي واحد بدهم كخبصدين كذب وحاب لا توحيد هاي إلا كليد الليدو قبطيين تأي ربنا إسرائيل إلا كليدو
reer bani israa'iil hoos la geeyo qibtiyiinta la dhaho adinka awood badan tihiin adinka boqortaysan adinka wax ka seesaan kuwan kale la dhaho wax ma tihiin wax ma tartaan shaqadan hoose noo qabta meel ma gaari kartaa in la dulmiyo xitaa hadday shaqeeyaan lacagta la siinin awood kasta loo sheegto bal ay gaari doonto maxaa la dhihi jiray inay ilmahooda la dilo wax la mid ah saas ay ahayd حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله إن فرعون علا في الأرض إلهي سبحانه وتعالى وحوت المعمي إنه فرعون اسكو وينيي اسكو كبريي وحكستو أسيغا أو شاكتي إنه معمولة أولي هاي قفنا للهان بل وحو قارا وحيتا إلهي أولي هاي إن دادكي أوكال قيقاوية قيبنا أوله قيبتان idinka waa fiican tihiin qayb kale uu dhaho qaybtan idinka waa liidataan waa tooseysaan waxba ma tihiin xukunka ma gaari kartaan waxaa samayn kartaa mal anagaa noo shaqaysaan oo ah reer bani israa'iil ilaahi subxaana watacaala wuxuu tilmaamay in reer bani israa'iil fircoon uu aad u dulmiyey dulmikan ugu xun cadaabkan ugu xun dumarkooda inuu xoogi jiray inuu ilmahooda gowraci jiray inuu ayaga ku shaqaysan jiray uusan lacag siin jirin iyo wixii la mid ah aad buu u cadaab ilaah u dhahay yasuumuunakum سوء العذاب عذاب كان أجوحن وأجود دكتاتورسن أيو إلهي سبحانه وتعالى النامي إنه فرعون كل لقمة رب بني إسرائيل لذلك ولا ليال فرعون ظلم جيس وحي أهد أوكلية إنه قوم كاسي عداوة سئوا عربتراء وتلما وله أنا جايدين كأود بدن إلهنا سبحانه وتعالى تعودي دي وحوت لما يحيي تهدك لنا نسميهين عدالة لو باهي هاي إن أمد كل لقمان قفنا قف كلا كما حيجا قفنا قف كلا كما قيبض أيها الله سبحانه وتعالى عدالة أتلمامي سأوجد بالله صدر الدونا نو موسى سي أمد أو أبرا إن أمد يسميهين قفنا قف كلا وسنكسرين لمانتين أن هي الضمير إله سبحانه وتعالى حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما